madaxweyne waxaan ogahay inaadan adigu waxba ka ogeyn xoolahaas muxuu ahaayeeto heerarkooda inaadan waxba ka ogeyn qaadistooda waxba ka ogeyn laakiin madaxtooyo oo dhan waa laga ogyahay wax yar kadib doorashadii madaxweyne Farmaajo 23 maalin oo ku sugnaa guriga ay talada ka goodo ayaa waxa alaab jiif iyo kuwa kale ay qaadeen ilaalada iyo xubno muhiim ah oo ka agdhawaa madaxweyne Farmaajo inkastoo madaxweynuhu uusan ka warqabin alaabtan madaxweyne maxamed cabdulaahi Farmaajo inaadan ogeyn lacagtaas ayaan indiqaadsanahay waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo caruur korsata nimankaasina waxay igu hendedeen xoolahaygii oo madaxtooyo yaala ayaa waxa leeyiri la imaw xildhibaan anigu xildhibaan malihi xoolahaygii aan rabaa biliis xaqaasa iga maqan 3 Maarso 2017 xilli galab ah ayaa Carwa Al-Aamin oo ku beegan guriga ummadda laga qaaday alaabtan sida ay sheegayso Faadumo Maxamuud Maxamed oo kamid ah milkiilayaasha Carwa Al-Aamin in fooskaygii aan wataa xoolo badan malihi 100 milyan ku sheegan mayo dawladda isi xaqaygan yar oon leeyahay oo sakuuradka sariiraha loo dhigay ah wuu isoo caayay wuu isoo hantaa tureeyay waana isaga soo tagi waxaan rabaa xoolahaas biliis haday ku soo gaaro codkaygu inaad xoolahaas si dhaqsi badan inaad ii siiso iiga keento ragga qaba ku seexda waa ragga aad mas'uulka ka tahay adiga istaafkaada qaaska ah hoolalkay yaalin alaabtii ma dhiman lama bililiqaysan lama raran waa maalin Ramadaan waxaygiyaan u baahanahay mudane madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Farmaajo Xasan Farmaajo waa joogay cid walba waa joogtay sidaan kuugu lisay iguma adahanbayn ina xaquuqdeydii iyo xaqii aan ilmaha ku korsanayay anigoo intaas ku soo dhimanaynay oo dawladdaada saa uga daba ordaynay maanta inay qori la igu hendado madaxtooyada irideeda ma aanan maleynaynin laakiin way dhacday halaysiiyo xoolaha iga maqan waxa iga qaaday farxaan wuxuu yiri aniga waa la soo bedelay waxa la ii soo bedelay meesha ra'iisul wasaaraha raadso xoolahaadii shalana adaa iga qaaday xoolahaygii adiga iyo ina Farmaajo iyo muxuu ahay intii naas oo isku hal familaha alaabtaas iga qaaday walaalayaal waxaygii isiiya intii kale waan arki waayay asagaan waxaan ku qabtay muxuu ahay qayre gurigiisa iridiisa lacagtaydii meel ku sheeg wuxuu yiri madaxweynaha waxaan u diray masadaan u diray xoolahaadana waa la og yahay cid walba oo madaxtooyo joogtaana waa ogtahay xoolahaasaan u baahanahay biliis madaxweyne haddaad codkayga maqasho Xasan Farmaajo waa og yahay xoolahaas galabta la keenay cid walba xaadir ay ahay agaasima showle ninka la yiraah waa ninka godobta qaaska iga galay waa ninka xoolahayga i duudsiiyay waa ninka xaquuqdayda ku tuntay waa ninka shacabkaada iyo dawladdaada ninka isqabadsiiyay waaye ugu dambeyntii maama Faadumo ayaa sheegtay inay qanaaco weyn ku qabto ee madaxweynaha uu arki doono fariinteeda isla markaana ay heli doonto lacagta ka maqan magacayga iyo muuqaygu hadduu ku soo gaaro waa carwada sayidka ku taala meel dheer kaama jirto guriga ummadan ka soo horjeednaa waftiyaad u soo diri kartaa ummadaad soo diri kartaa kuwii qaadayaa og xoolahaasaan rabaa biliis haddii islaamnimo jirto waa maalin Ramadaan xaquuqaana lahayn ma doonayo inaad waxaana filayaa inaadan ogeyn laakiin ay ii imaan doona xaqaygu maalin ayaan intaasaan uga baxayaa hadalka qeyro badan inay qaado ma rabo madaxweynahayga yaa tahay intaas ayaan muxuu ahaa calanka ka daba siday dawladdaada jeclaay midii hore marta inay noqotaan jeclaay waxaan u soo marayna ilaahay iyo adiga ayaa iga marqaatiya maalintan is soo horjoogsano dhinaca kale xiriiro aan la sameynay fila Soomaaliya ayaa inoo suurtagelin inaan ka helno jawaabo rasmi ah